maanta sidaan ognahay halkan waxaan isu soo xaadirnay aanu u nimi in ay beesha 9 Eylo ay duubto ugaaska guud ee boqortooyada 9 Eylo ee Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmadan aan joogno iyo Shabeellaha Dhexe gobolkan degmooyinka kooban oo dhan ugaaska joogo oo talada iyo arinta iyo mushawarada laga qaadan. Salaam waxa way walaalayaal maadaama annaga aan nahay odayaasha dhaqanka ee Shabeellaha Dhexe marqaati aan nahay waxaan ka marqaati kacaynaa beesha Eylo maanta inay duubatay ugaas Sheekh Xasan Sheekh Maxamed Kuusow marqaati aan ka nahay maanta waxaan leeyahay beelaha Eylo aan iclaam ugu diraa boqor aan duubay ama ugaas aan duubay kaliix ma aha ugaaska markii la duubo waxaa la rabaa qowlkiisa ama hadalkiisa inuu wanaag ma aha unagu marxaati aan nahay haddaan odayaalkii aan nahay culamaa diinka aan nahay dhalinyadii aan nahay ururka haweenka aan nahay maxaabadda aan ka danan aan joogno marxaati waxaan ka nahay beesha Eylo inay galabta ugaas ay dirto kulli macnaha mataqaanaa horaana loo sheegay inay ugaas la'aan ay laheen laakiin ugaaskii macnaha mataqaanaa ilaahay xagiisa uu ka maray ugaas lamaadna hadda ay ka duubteen Sheekh Xasan Maxamed Kuusow ilaaha Allah dhureeyo kii dalka iyo dadka wax u tarna Allah ka dhigo leenahay mar labaad insha Allah nabad ugaas xasan waxa soo dhawaaqan ku leenahay ku soo dhawaashaad markaa ku soo dhawaaw taada kalmatihin ugaas markaa ku gaaray marka Eylo markaa ma tihin ugaas waxa tahay oo markaa loo doortay gobolka Shabeellaha markaa dhexe ayaa markaa tahay Sheekh Xasan markaa shaqa u taalo dadkii soo doortay oo soo magacaabay meeshan keenin shaqa u taalo gobolka Shabeellaha dhexe magaca ku leeyihiin maamuusa ku leeyihiin deegaana ku leeyihiin tala ku leeyihiin laakiin oo hadda iska maqno mataan dur in nacfi meeshan waa lagu dhamaaday dhibaato ka soo dhacdo bir intii maad uu yiraahdo waranka xaqi ana haduu yiraahdo wax ma ka kabay ma ka celiyo saddex muru ma ka celiyo shid ma ka celiyo ada iska celiyo no iska celi marxaata dilo baadan waa kan uu ka ku joogan laakiin marka hore adiga nin oo isdifaaci karo ama wixiisa ay muuqdaan oo indhiisa banaanka yihiin hadii aad tahay ma sha Allah walgu garbiya hadii laakiin ninkii mid ugu yimaado dooro qoyda aanu qotidni adoo taagana wax walba ku raadal ka samaysana aniga warku waa badi waxaan leeyahay shaqa idin taalo shaqadaas inay qabatiin la rabaa si wada jireen oo qabatiin la rabaa 9 Eylo gobolka Shabeellaha Dhexe dadkane hambali iiboogan u soo jeedinayna iyadoo jirto waqti xasaasi ah oo siyaasadii albaabaha ka sii feedmayaan oo ma aragtay howlihii dawladnimo maamul goboleed oo bilaabanayo waxa loo baahan yahay jareer weyn isku duubo aniga Eylo wax keenaya ma aha yaa akhay shayga waxa loo soo dhiciyay mid ka bacdi loo qaybsan gol sukeeno laakiin aniga ma aragtay Eylo wax ka suga shiidla wax ka suga kaboola wax ka suga makana wax ka suga may duulaanku waa in la qaada ka bacdi waxa taaq u leedahay aaya ka talinta qoomiyada jareer wana ma hasku soo kulmaysa ugaas Xasan Maxamed Kuusow waa ugaaska 9 Eylo ee gobolka Shabeellaha Dhexe qaasatan degmada Jowhar markaatiyan ka nahay hadii aan nahay heer gobolka Shabeellaha Dhexe ee ku nool qoomiyadaha Soomaaliya ee kala duwan markaati cadan xil weyn waaye intii ka soo qayb gashayna sharaf iyo wanaag ayaan u haynaa annaga waxaan rajaynaynaa mid ilaahay oo naadi waaye ma ahin mid anaga aan iska doonanay wuxuu ilaahay naadiyaa meel lagu tagaa waa maadsantihiin sida sharafta leh oo aaga soo qayb gasheen waxaan rajaynaynaa biidnillaahi alkariim anigana inuu ilaahay iga dhigo ku wax qabta ummadda ilaahay wax u qabta beesha wax u qabta anigana inuu ilaahay iga dhigan rajaynaynaa aniga waxaan ahay ugaas gooni miihi ugaas Soomaaliyeedaan ahay gaar ahaan ugaas jareer weynaan ahay gaar ahaan weliba ugaaska beesha Eylo ugaaso wadii lagu yiraahdo waxa loo baahan yahay ugaaska shaqo u raba la shaqeeyo u raba ugaasa ay tahay aan lagu wareynaynin oo meeshii dhibka ahaa dhibkii lagu la qabin dhibkeeday leedahay intii annagana soo dooratay oo soo duubatay waxaan ka rajaynaynaa shalay siday noo keeneen oo shalay noogu soo duubteen inay garabka inuu aniga ina la ogaado waaye ilmihii
حام يعني أقعد واي أبويا أنا عيسى روح الأفضل منه